بسم الله الحمد لله. marka koobaad waxaan u mahadcelinayaa Alle. marka labaadna halkan ugaasiyada iyo odayaasha jooga waxaan rabnaa inaan baaq nabadeed u dirno dadka walaalaha ee isku dhacay ee dibku ka dhaxdhacay. waxaan leenahay wixii dhintay Allah u naxariisto, wixii dhaawacayna Allah u boogadhayo. inta kale waxaan u jeedinaynaa odayaasha iyo qabiilka dibka dhexdooda ka dhacay arrinta inay ku koobaan inta oo cid dambe ka sii qayb qaadanin. waa dad walaalo ah oo isku dhacay, marka inaan dhibaatada la sii badinin oo laga qayb qaadanin baan ka codsanaynaa dadka ka baxsan ee kale. dawladdana waxaan uga mahadcelinaynaa inay mar walba ka qayb qaadato. waxaan leenahay arrinta kaalinta idinkaga aadan ama tug gobol ha noqoto ama degmo ha noqoto ama tan deegaankaba ha noqotee dhibaatada nagu badatay ee soo noqnoqotay oo runtii dhibaato aad u xun oo sanooyinkan dambe aad noogu badatay wax laga xumaadana inaan dawladduna ay kaalinteedii ka qaadato. haddaan nahay odayaasha dhaqanka, ugaasiyada iyo suldaanada iyo odayaasha kale halkan taagan, si baaqa waxaan u diraynaa dadka walaalaha intaa inay ku ekaato. waxaan leenahay inaad halkaa ku joojisaan ayaan ka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad. bismillaahi raxmaani raxiim. alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin sayidina maxamedin sala allahu calayhi wasalam. waxaan rabnaa inaan halkan baaq uga soo jeedino masiibadii ka dhacday degmada Dhagaxmadow iyo eeriyadeedii Sagag. dhulkaas geeridii ka dhacday dadkii ku dhintay ee walaalaha Allah u naxariisto, inta dhaawacana Allah u boogadhayo, caafimaad degdeg ah Allah siiyo. inta ka soo waxaan soo jeedinaynaa anagoo odayaashii deegaanka ah in la isxakameeyo oo aan dhibaatada dhacday dhibaato kale lagu darin. arrintaas oo arrin shaydaanku asal u leeyahay ay tahay. dadka walaalaha dadkii isdili lahaaba ma aha, meeshii wax ka dhici lahaayeen maynan ahayn. iyadoo saas u jirto marka waxaan ugu baaqaynaa in arrintaas la xakameeyo. odayaasha tagay iyo cid kastoo ka qayb qaadatayna gobolladii iyo degmooyinkaba dhammaantood waan u mahadcelinaynaa. cid kastoo meesha ka qayb qaadatay annaga laftayadu qaybtanadii waanu qaadan haddii Alla idmo. meel kastoon joognaba inaan nabadgelyadaas ayna intaa hadda dhacday wax ka dambeeya oo dhibaato ayna ka dhicin ayaanu intaas ugu baaqaynaa. waa inta tolka ah. dawladdana waxaan ka codsanaynaa iyadoo qaybteedii gurmadka ah sida la soo sheegay ay qaadatay, haddana inay xalka midka ugu fiican arrimahan ay soo noqnoqdeen inay xalka fiican ka qaadato, ay dadka kala dhex gasho, wixii loo qaban karo oo wanaagahoo dhan ay qaybteeda ugu fiican xafiiska nabadgelyada iyo madaxtooyada iyo dhammaan iyo gobolladii iyo degmooyinkaba maamulada ka jira ay qaybtooda ugu fiican ka qaataan. intii hadda isbeddelku jiray arrimaha qabaa'ilku soo noqnoqday, arrintaas intii laga tashado oo aad la isaga weydiiyo sababta keenaysa iyo duruufta iyo deegaamaynta iyo waxyaabahaas in inta si ka fiican oo daraasad lagu sameeyey hawshaas inayna soo noqnoqonin, in dhammaan laga wada shaqeeyo madaxda dhaqanka iyo dawladda iyo dhammaan. saasaan ugu baaqaynaa dadka ehelka ah intay dhimatay Allah u naxariisto, inta kalena nabadgeliyo. meel kastoo la joogo dadku markay wax isku dhacaan hadday dibad tahay hadday dalka gudihiisa tahay meelo badan baa laga buunbuuniyaa. arrintaas arrin sokeeye oo walaalo ah oo isku dhac ah oo aan geeri dhibaato ku timid oo xaqdarra inay tahay lana xalliyo. tolkii xallin lahaana meel kasta uu joogo dawladdii ay joogto arrintaas in dib loo soo celiyo inta maanta ay joogto ayna dhaafin. sidaasaan soo jeedinaynaa baaqaas anoo odayaasha dhammaantood. intaas. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.